barnaamijka kobciye waa barnaamij tixano ah kana kooban 30 qaybood kuwaasi oo taabanaya nolosha qof kasta oo naga mid ah. Kobciye waa daqiiqado kooban oo kobcinaya naftaada ha u daymo la'aan. Waa diyaarintii iyo soo jeedintii al-ustaad Coach Maxamed Ibn Umar. bismillaah walxamdulillaah wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. kusoo dhawaada barnaamijkeennii kobciye iyo cashir cinwaankiisu yahay baro naftaada. dadku inta badan waxay aad u jecel yihiin baaritaanka iyo dabagalka waxa ayaga ka baxsan, waxayna ku dadaalaan siday wax badan uga ogaan lahaayeen. taana waa midda ku bixisay inay baaritaano badan ugu dhaqaaqaan waxa ayaga ka soo haray oo dhan ee dhulka dushiisa saaran, kuwaasoo isugu jira noole iyo manoole intaba, ilaa ay gaareen inay dayaxa tagaan oo hawada sare nolol iyo deegaan u baadigoobaan. waxaas oo dhan waa wax loo baahan yahay. baaritaanka iyo barashada waxa ilaahay koonka dul dhigay waxaa ina faray qur-aanka oo sheegay in ilaahay noo sakhiray waxa dunida dusheeda yaalla oo dhan, lana rabo in laga faa'iidaysto. hase ahaatee waxaa iyadana laga maarmaan ah inaan baranno nafteenna iyo waxa ilaahay inagu deeqay oo awoodo ah, waayo waa nafteenna tan wax soo hindisaysa, waana nafteenna midda dunida iyo wax dul saaran oo dhan loo sakhiray, looguna talagalay inay ka faa'iidaysato. allah wuxuu kitaabkiisa ku yidhi wa fii anfusikum afalaa tubasiruun, oo macnaheedu yahay naftiinna miyaydnaan arkayna. aayaddu waxay nagu gubaabinaysaa inaan barano nafteenna, ogaano awoodaha allena siiyey iyo waxa aan dadka kale uga soocannahay intaba. tirakoobyo nafta laga sameeyey ayaa sheegaya in indhahaagu isfuraan iskuna xirmaan 18,000 oo goor maalinkii, inaad kala saari karto 18 milyan oo midab isla markiiba, in qalbigaagu garaacmo 100,000 oo goor maalinkii. u fiirso awoodahaas alle nagu manaystay ee aan wax war ah u haynin, waanad aqoon ee ogow inay awoodahaagu ballaaran yihiin. waxyaabaha qofku ka faa'iidayo barashada naftiisa waxaa ka mid ah inuu ogaado baraha uu ku xoogan yahay kuna sarreeyo, islamarkaana uu saaro diiradda ugana faa'iidaysto dhinacyada noloshiisa oo dhan sida waxbarashada iyo shaqada. inuu ogaado baraha uu ku liito ama uu ku hooseeyo, islamarkaana uu ku dadaalo siduu u kabi lahaa. waxay kuugu suurageli kartaa barashada naftaada adoo xoogga saara ogaanta waxyaabaha aad ku fiican tahay iyo waxa aad ku liidato. waxaa jira qaabab badan oo loo ogaado iyo imtixaano la sameeyo si qofka uu uga ogaado nooca shakhsiyadiisu tahay iyo waxa uu ku wanaagsan yahay. waxaa ka mid a meelaha laga ogaan karo qofka baraha uu ku xoogan yahay iyo nooca shakhsiyadiisu tahay websiteyo kala duwan, kuwa siinaya su-aalo aad ka jawaabayso sida webka viacharacter.org. kadibna wuxuu kuu sheegayaa meelaha aad ku xoogan tahay iyo websiteka kale oo kuu sheegaya nooca shakhsiyadda aad tahay. websiteka la yiraahdo www.16personalities.com. labada web aan hore u sheegnay waxay ku diyaarsan yihiin labada luqad ee carabiga iyo ingiliishka. kii aad ku fiican tahay ayaadna ku samayn kartaa su-aalaha. haddii kale waxaad samayn kartaa inaad raadiso ruux yaqaano oo ku dheereeya qaababka wax loo taxliiliyo ama loo falanqeeyo, ha ahaato falanqaynta iyo analysiska lagu sameeyo shakhsiyada iyo dadka ama shirkadaha ama mawaaqifta iyo go-aanada. ruuxaas oo kaa caawin kara soo saaridda meelaha awooddaadu ku badan tahay ama waxyaabaha aad ku fiican tahay iyo meelaha aad ku hooseyso oo aad ku liidato. anigu waxaan samayn jiray in 6 biloodba mar aan warqad ku diyaariyo su-aalo oo aan weydiiyo dadka aan asxaabta nahay ama yaqaana oo aan nolol wadaagnay ama aan tacaamulnay amaba wax soo wada baranay ay iga agdhawaa. waxaana ilaahdaa iisoo qora waxyaabaha wanaagsan ama xun ee aan uga duwanahay dadkii aad soo aragteen oo aad nolol la soo wadaagteen ama aad la soo dhaqanteen. waxaan ku dhihi jiray si saxan iigu soo qora jawaabaha, iina soo sheega dhabta, magacaagana ha ku soo qorin. qof kale ayaana u xilsaari jiray inuu soo ururiyo amaba uu ii keeno, amaba waxaan dhihi jiray halkaa ii dhiga meel intaan u tilmaamo si aan u ogaanin qof walba warqaduu qoray.
wallaahi waxaan arkay arrimo badan oo wanaagsan oo aanan hore ugu baraarugsanayn inay nafteydu leedahay oo ay ii sheegeen, iyo kuwo ceebo ah oo aan lahaa intaba. dadka qaar ayaa laga yaabaa inay isweydiinayaan ama ay runta ii sheegi waayaan oo ay ammaan kaliya ii soo qoraan. waa sax isweydiintaas, waana laga yaabaa oo inay dhabta kuu sheegin qaarkood, laakiin waxaad ogaataa in dhowr qof oo kala duwani ay tilmaamo wanaagsan ama kuwo xun isku wada raacaynin, kuna wada xusaynin qoraaladii ay kuu soo qoreen. hadday dhacdana waxay tusaysaa jiritaanka tilmaantaas iyo dhab ahaantooda, waayo macquul maahan in dadkaasoo dhani ku afmacaynayaan hadday tilmaamuhu yihiin kuwo wanaagsan, ama ay ku xasdayaan oo ay ku necab yihiin hadday tilmaamuhu yihiin kuwo xun. marka adna tijaabi dhagaystow bal. waxaad kaloo samayn kartaa si naftaada meelaha ay ku fiican tahay aada u ogaato, inaad si degan u raacdo una dabagasho waxyaabaha aad ka hesho samayntooda, kuna raaxaysanaysid marka aad ku guda jirto, iyo waxyaabaha ay u badan yihiin hadalhayskaaga iyo ka hadalkaaga. sidoo kale waxaa iyana ku ogaan kartaa dadka kale ee ku agdhow inaad weydiiso oo tiraahdo waxa aan ku wanaagsanahay waa maxay iyo waxa aan ku liito. tusaale ahaan waalidka si gaar ah ayay ogaan karaan caruurtooda mid kasta iyo meeshuu ku fiican yahay, iyo ilaah wuxuu hibad u siiyey hadday u fiirsadaan si fiicanna u dabagalaan. sidoo kale macalinka iyo barayaasha iskuulada iyo jaamacaadka iyo meelaha kale wax lagu barto ayaa iyagana hadday u fiirsadaan garan kara waxa uu ku fiican yahay ardagooda kuna wanaagsan yahay hadday aqoontooda leeyihiin. inta badan ma siino ahmiyad barashada nafteenna ee haddaan isku howli lahayn oo aan baran lahayn nafteenna, waxaan si sahlan ku gaari lahayn ujeedooyinka nolosha aan higsanayno, sababtoo ah waxaan diiradda saari lahayn meesha aan ku fiicannahay, taasoo inoo sahli lahayd inaan si degdeg ah u gaarno guulaha aan higsanayno. markaad taqaano naftaada, waxaad awood u leedahay inaad maalgashato naftaada sida ugu habboon, isla markaana wax soo saarkaagu iyo waxtarkaagu aada uu u bato oo aada noqoto ruux saameyn muuqata ku leh bulshadiisa. dhagaysto, haddii aad garan weyso waxa aad tahay iyo waxa aad goyso, ogow inaad weligaa wareer ku jirayso, iyo maalin walba inaad wax cusub tijaabiso oo aad ka tagto wixii hore. maalinba cilmi cusub aad bilowdo oo dhex uga tagto, maalinba meel aad joogto ilaa waqtigu kaa dhaco ama naftaadu nacdo badbedelka, oo aad adiguna iska aaminto inaad tahay ruux aan waxba gelin oo wuxuu isku dayo ku fashilmaya. dhibkuna ma ahan inaad faashil tahay ama aadan waxba geline, waa inaadan aqoonin naftaada. baran naftaada marka hore intaadan waxba ku dhaqaaqin, iskuna day inaad ogaato waxani inay yihiin wax aad ka bixi karto, sababtoo ah allah wuxuu qaybiyaa awoodaha ruux walbaana meel ayuu ku fiican yahay oo awoodiisu u badan tahay. ayadaas hadduu xoogga saaro kuna dadaalo, wuxuu noqonayaa ilaahay idankiis mid waxtar leh oo xidig ah bulshadana kusoo hirato. ogow, ma jiro superman ama superwoman iyo qof aqoon kasta ku fiican, sheekhul kullina ah. haa, waa jiraan dad la yiraahdo mutacadidii almawaahib ama multi talented oo waxyaabo kala duwan si sahlan u baran kara una samayn kara, mana badna dadkaas. sidoo kale ayagu xataa wax kama oga wixii ay bartaan ama waqti ay geliyaan oo ay waxyaabo ay u sahlan ka mid ah mooyaane. sidaa daraaddeed iska ilow wax la yidhaahdo sheekhul kulli iyo waan daadshay oo wax kastaan aqaan, ee xoogga saar dhinacyada naftaada ku xoogan tahay si biri wax lagaaga weydiin karo, laguguna soo hagaagi karo, aadna leedahay takhasuskeedii iyo aqoonteedii. waxaa shaki la-aan ah in qof kasta uu leeyahay ceebo iyo nuqsaan. qof dhammaystiran oo ceeb kasaliin ahina ma jiro. waxaase la isdheer yahay laguna kala fiican yahay ogaanshiyaha ceebaha iyo ku dadaalidda hagaajintooda. waa sida gaarigaaga ama mobeylkaaga markay ciladihiisu soo muuqdaan ba aad ula cararayso, ula ordayso qof kaa caawiya hagaajintooda ama kuu sheega sida loo cilad bixiyo. sidaasi la mid a naftuna waxay u baahan tahay in lagula dadaalo hagaajin, lana cilad bixiyo mar walba. nin suuqa bakaaraha iridiisa hore miisaan u ooli jiray ayaa waxaa uu dhihi jiray, ma iska socotaa mise waa isla socotaa? oo uu ka wado, ma og tahay cabirka culayskaaga mise waad iska socotaa oo isma ogid heerka aad marayso. marka hadda waxaa
aan ka wadnaa ma la socotaa naftaada oo ma taqaanaa mise waad iska socotaa ma la socotaa meelaha aad ku xoogan tahay maxaadse ka og tahay ceebahaaga iyo meelaha aad ku liidato dhammaan dadku waxay u wada ordayeen inay noqdaan dad wanaagsan oo dadku jecel yihiin wanaag uuna lagu sheego ceebtuna ku yar tahay amaba ceebka saliim ah oo hadday suuragal tahay waxaase hubaal ah in arrinkaasu suuroobaynin ilaa ruuxu barto naftiisa iyo waxa ay tahay iyo waxay ku wanaagsan tahay iyo weliba dhinacyada ceebta iyo nuqsaanta ay ka leedahay waxaa dhacda in qofku mararka qaar ogaado ceebihiisa laakiin uu kala hor yimaado inkiraad iyo inuu marmarsiinyo u sameeyo oo uu difaaco taasoo keeni karta inuusan weligiis ruuxu wax horumara ku tallaabsanin kana dawoobin ceebaha naftiisu leedahay dad badan nisaa isku waayaan dadku inta badan waxay ku dheereeyaan siday xumaha iyo dhinacyada nuqsaanta qofka hore uga soo saaraan mana u sahlana soo saaridda dhinacyada qofku ku fiican yahay kuna xoogan yahay taas ayaana keeni karta in ogaanshiyaha baraha xoogga qofka uu ku leeyahay ama ku fiican yahay dib u dhacdo dhagaysto waxaan joognaa duni tartankeedu xoogan yahay qof walbaana raadinayo inuu noqdo kan ugu fiican waxaase laysku dhaafay ogaanta wadadii loo mari lahaa arrinkaa oo ah barashada nafta iyo diirsaaridda waxa ay ku wanaagsan tahay dadka guulaystayaasha ah oo mujtamaca ka dhex muuqda badankoodu waa dad diiradda saaray waxyaale ay ku fiican yihiin oo ay ka mid yihiin baraha awoodda naftooda ay leedahay ha noqdeen dad naftooda maareeyey oo mariyey baaritaano kala duwan iyo falanqeyn kana shaqeeyay imtixaano sidaan ku ogaaday awoodahooda ama kuwa aan waxba marin ee isaga aaday uun barashada nafta waxay ku siinaysaa kalsooni waxay ku tusaysaa qiimahaaga waxay calaamadeynaysaa halkaad nolosha kaga beegan tahay waxay kuu suuro gelinaysaa inaad noqoto xidig lagu hirto oo ummadda waxtara ee baro naftaada mahadsanid diiwaangeli wixii aad faa'iiday isku day inaad dhaqan geliso siina faafi